Isma aanan lahayn iftiinkii noloshaada ayaa mar qura dumi doono. Isma aanan lahayn gabadhii aad jecleed markaa guur u bandhigato hadal iyo muran dheer kadib ayay ku geli doontaa. Isma aanan lahayn guur hadda diyaar uma ihi ayay ku dhihi doontaa. Isma aanan lahayn iftiinkii noloshaada mar qura ayuu jebi doonaa. Murugada caashiqa ayaana saaxiib ka dhiga doontaa. ereyadaas aad ku xanuunka badan waxaana la soo wadaaga mid ku xiran saaxiibadeyda barta YouTube-ka Socdaal 24. waxaan mar kale idiin soo gudbi doonaa qisooyinkii taxanaha ahaa kuwaasoo inta badan aan wax badan ka faa'iidno. Tani kuma tilmaami karno qiso ee waxaan dhihi karnaa qalbiga ayay burburisay noloshii oo idinla waxa ay ka dhigtay wax aan soo jireen ahayn. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Magaca gabadha waan qari doonaa inta ay socoto qisadan maadaama Cabdiraxmaan uu naga codsaday dhawaqa magacaas marka uu maqlo inuu xusuus dheer u geli doono. Cabdiraxmaan 2020 ayuu bartay gabar magaceedana uu naga codsaday inaan qarino. gabadhii Cabdiraxmaan waxaa dhex maray xiriir jacayl oo aad u qurux badan oo aan dhihi karno waxa uu ku bilowday si walaaltinimo ah. waxa ay iska barteen aaladda Facebook-ga. Cabdiraxmaan oo aaladdaas iska isticmaalayo ayaa mar qura waxaa indhihiisa soo qabtay gabadha magaceeda aan qarinay sawir markaas ay soo dhigtay. aad ayuu ula riyaaqay kadibna gabadhii waxa uu isku dayay Cabdiraxmaan in uu la xiriiro. durbadiiba aad ayuu u soo dhaweysay oo waxa ay ahayd gabar qalbi furan oo dabeecad fiican. marka laga hadlayo xiriirka jacaylka qofna si gooni ah ayuu u taabtaa, qofna kaftan iyo waxa uu leeyahay ciyaar. waxaa laga yaabaa qof hadda inaad dhahdo waan ku jeclahay durbadiiba uu ku dhaho asigana waan ku jeclahay oo waan ka helay. Cabdiraxmaan gabadhii markii uu la hadlay aad ayuu u soo dhaweysay waa ay la kaftantay. waxa ay noqdeen laba qof oo saaxiibo ah noloshoodana ay jeclaayeen heer sare inay ka gaaraan. markaas kadib waa ay iswareysteen waxaana soo baxday inay wada degan yihiin degmada Dayniile, gaar ahaan haddana deris ayay noqdeen. allo nasiib badana ruuxa jeclaatay haddana walaaltinimo idin dhex marta haddana haasawo xiriir markay dheesha u bedeshiin haddana dhigaadi agtaada uu degan yahay. sheekadu halkaas markii ay maraysay Cabdiraxmaan habeenada ka mid ah ayuu u tegay gabadhu. aad ayay u soo dhaweysay cabitaanada, cuntada, malaayga, wax walba oo qof bilaadan ah lagu soo dhaweey karo ayaa lagu soo dhaweeyay. xitaa guriga markii uu ka soo noqonayay si aan loo foodeen waxay gabadhi ku soo dartay wiil walaalkeed ah. ayay ku dhahday ilaa gurigiisa uu tagayo adiga ayaa ka mas'uul ah. Cabdiraxmaan guriga markuu imaaday aad ayuu u faraxay. waxa uuna habeenkii bilaabay bashqadihii jacaylka, fariimihii jacaylka, wax walba oo qalbiga gabadhaas uu ku hanan karo. ugu horeyn waxa uu ka bilaabay waxaan jeclaystay nafteyda inaan kuu hibeeyo markaa arkay sida quruxda badan oo aad ii soo dhaweysay. markaas ayayna gabadhii dhahday adiga xataa igama liidatid, aniga waxaan ahay dhibana jacayl, waan kaa xishoonayay, mar hore ayaad i qancisay. xiriirkoodii jacaylka halkaas ayuu ka bilowday. subax iyo habeen iyo dharaar walbana waxay ismaqashii jireen ereyada jacaylka kuwooda ugu xiisaha badan. maqalka muuqaalka internetkuna wuxuu ahaa jawi kale oo u farxada labadooda. sanadii 2020 ayay isbarteen, 21 farxad ayay ku qaateen. Cabdiraxmaan 2022 gabagabadeeda asagoo u sheegin gabadhii ayaa waxa uu go'aansaday in uu wixii muddo oo higleelayay mar qura uu bedelo in hal meel ay ka soo wada kacaan. waxa uu islahaa waxaa maqli doontaa ereyo qurux badan. waxa uu islahaa
waxaad maqli doontaa gaashaantaada wax walbuu u soo jeedisahay ayay ku dhihi doontaa. waxa uu islahaa guurka markaa u soo bandhigto waa ay ku farxi doontaa. waxa uu islahaa qalbigaada daryeel ayay u noqon doontaa. maxaa dhici doono? ma qalbiga ayay ka tooga doontaa? ma hadallo jees-jees ah ayay ku dhihi doontaa? ma jaceylka ayaa kaftan noqon doono? ma dheeshu ayaa si kale noqon doonto? waa ereyadii ugu murugada badnaay. cabdiraxmaan gabadhii ayuu wacay. salaan iyo sheeko dheer kadib waxa uu sheegay inuu guur diyaaru yahay. waxa uu islahaa haye ayay ku dhihi doontaa. guurka qabanqaabidiisa ayayna qayb ka qaadan doontaa. alla naf wax jecel dhib badana, oo naftaa jecleed markay himiladii kula wadi weyso dhib badana, oo haddima jecel markaa gasho dhib badana, oo ilinta markay kaa imaado ruux kaa tiro waa weyse dhib badana, oo haasaawihii muddo ah soo wada markaa weyse qalbi jaba tiiraanyadiisa badana. markaas ayay dhahday, aboowa aniga hadda guur diyaaru ma ihi, qorshaha iiguma jiro, xitaa 2 sano oo hadda kadiba u maleemaayo inaan guursado. maxaa sabab ah ayuu cabdiraxmaan dhahay. markaas ayay dhahda, maya sabab ma jirto, laakiin waxaa jirto inaanan guur diyaar u ahayn. waa ku baryaa biliis ha i dhibin aboowe, wax walba sidaan ayay ku qurux badan yihiin. cabdiraxmaan ereygaas markii la dhahay ilinta ayuu cesho waayey. markaas ayuu dhahay, sidaas ay dhihin, waxaan diyaar u ahay mustaqbal, waxaan diyaar u ahay guur qurux badan inaan kuu dhigo. hubaal waan ku jeclahay, nafteeda ayaa tahay, nolosheeda ayaa tahay. maya. cabdiraxmaan inuu xanaaqay ayuu dhahay, ammaan ayaa iga helaysaa, 6deeda lambar ii nabadgeli. cabdiraxmaan waxa uu noqday maqana jooge. markaas ayuuna dhahay, isma aanan lahayn gabadhaha jecleed ayaad wey doontaa. hadalkii ayaa ka go'ay, juuqla-aanna waa uu waayey. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii 1. anigu guur baan u bandhigay, ayaduna jees-jees ayay ugu dhahday guurkaada diyaaru miihi. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaa ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. haddaad xiiseyso sheekooyinka iyo qisooyinka jacaylka mar walba ku xirnaa barteeda YouTube-ka. saaxiibada sheer u dheh. sidoo kale bahda mucaashaqiinta waa aad isleedahay qisooyinka jacaylka way jecel yihiin, ayaguna sheer u dheh si ay saaxiib nooga dhigtaan. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.